asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalaca news channel. daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idinleynaa kulan wanaagsan. xubin wareedka waxaynu kusoo qaadanaynaa dowladda turkiga oo sheegtay inay soomaaliya u baahan tahay turkiga si loo gaaro deganaansho siyaasadeed. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevlut kazafoglu ayaa hadalkaasi waxau ku sheegay shirka heerka wasiir ee dowladaha xubnaha ka ah ururka islaamka maanta uga furmay caasimada dalkaasi qatar ee dooxa oo looga hadlayo sidii loo taageeri lahaa soomaaliya. wasiirka waxa uu sheegay in soomaaliya u baahan tahay dowladda turkiga iyo dunida islaamka si taageero looga geysto deganaanshaha siyaasadda, dib u dhiska ciidanka ammaanka, lana horumariyo ama la abuuro deganaansho leh si loo gaaro horumar dhaqaale. wasiirka waxaa kaloo uu soo hadal qaaday oo uu ka hadlay siday turkiga kaalinta uga qaadanayaan taageerada soomaalida. waxaa kaloo uu ka hadlay in loo baahan yahay in iskaashi laga yeesho sidii soomaaliya maqaamkeeda sare loo qaadi lahaa heerka ay hadda caalamkaga jirto. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevlut kavazoglu waxaa kaloo soo hadal qaaday oo khudbadiisa kuga hadlay in ay turkiga door ka qaadanayaan dhexdhexaadinta dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan. waxaa kaloo soo hadal qaaday doorashada madaxtinimada soomaaliya ka dhici doonta sanadka 2021 taasi uu sheegay inay tahay doorasho ku xiran mustaqbalka soomaaliya. heerka wasiir arrimo dibadeed ee dalalka xubnaha ka ururka iskaashiga caalamiga gaar ahaan kooxda u qaabilsan xiriirka soomaaliya waxaa kaloo la filayaa in laga soo saaro warmutiyad lagu taageeriyo soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. wasiirka arrimaha dibadda turkiga waxaa kaloo soo hadal qaaday in dalalka islaamka ay u wada midoobaan taageerida soomaalida islamarkaana meel layska dhigo khilaafaadka dhexdooda ka dhexeeyo. si kastaba haatee shirkaasi ayaa la filayaa in laga soo saaro warmutiyad lagu taageerayo dowladda federaalk soomaaliya iyadoo xilligana ay soomaaliya ka jirto dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa dabeecaddu ay keentay iyadoo boqolaal kun oo qofna ay ku barakaceen daadad iyo fatahaadyo ka dhacay qeybo kamid a dalka soomaaliya oo ay ugu darantahay magaalada beledweyne. kastaba haatee dowladaha turkiga iyo qatar ayaa waxay ka mid yihiin dowladaha safka hore ugu jira dunida muslimka iyo carabta ee taageerada weynsiiya dowladda soomaaliya haddii noqon lahayd taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid lagu taageeriyo dibadhiska ciidanka soomaaliya. daawadayaal xubinteen waa nagintaa waxaad kala socoteen daalaca news channel waanu ku mahadsantiin daawashadiina.